waxa uu soo gogol fadhiistay doonayana inuu gabaati ka bixiyo gabadh Soomaaliyeed oo xidig ka ahayd fankii Soomaaliyeed heebadii quruxna ilaah uu ku maneystay wuxuu si gacaltooyo ah gacanta ugu dhiibay madaxweynihii kolka xilka hayay ee Maxamed Siyaad Barre isagoo doonaya in loo gelbiyo aroos gingimana loo dhigo qasri ku yaala Bangiina loo geeyo kusoo dhawaada qiso xiiso badan waxa uu madaxweyne ka ahaa wadan ku yaala Afrikada Dhexe ee ku dangiiga webiga Ubangi wuxuu ahaa keligii talis dictator dhiigacab ah shacabkiisana gumaaday wuxuu isku magacaabay boqor abidkiis talinaya wuxuu jacayl cajiib ah oo lixaad lagu qaaday inan Soomaaliyeed oo fanaanad ah maanta qiso cajiib ah oo ku saabsan ayaan idinkaga sheekeyn doonaa jacaylkaas uu u qaaday gabadhii fanka Soomaaliyeed codka tulmoonad lahayd ee ka dhex tilmaamneed naftayda waan ku huri lahaa hantiina ka bixin casha sharafeed loo sameeyay madaxdii ka qayb galaysay shirkii midowga Afrika ee Muqdisho ka dhacay 1974 ayaa habeenkaasi waxa showga maada iyo madadaalada halkaasi ka soo tabinayay fanaaniintii hobolada waabari madaxweynihii waalnaa iyo dictatorkii waalnaa ee Afrikada Dhexe Jane Bedel Bukazi ayaa isagu wuxuu habeenkaasi halkaa ka tilmaamsaday gabdhihii tulmoona ee fanka tabinaya habeenkaasi gabadh ka mid ah jacayl leebxaad leh ayuu u qaaday isagoo jacaylkaasina jugta wadnaha gaarsiiyay shaqaayigu raac idbakinta geeriday ku hortima gabadhii uu tilmaamsaday ee cashadii casuumadii uu ka cuni waayay waxa ay ahayd fanaanadeynii weyn Khadija Maxamuud Jimcaale Khadija Qalanjo isla subaxii waxa uu ku soo kalahay ama uu ku soo jarmaaday madaxweynihii kolkaas xilka hayay ee Maxamed Siyaad Barre isagoo gacanta u dhiibanaya weydiisanayaan in gabadhaasi lagu midhigaaxiyo aroos gingimana loo dhigo Bangiina loo gelbiyo madaxweynaha Maxamed Siyaad ayaa waxa uu ugu jawaab celiyay inuu Khadija la hadli doono bal haddii ay doonayso inay marwo madaxweyne noqoto Maxamed Siyaad ayaa arrintii u soo bandhigay Khadija Qalanjo tii ugu jawaab celisay iyadoona tashi tusaaleen iyo talo cidna ka doonan habeen kaliya shaqooyay mahir galo ayee kuma fuulaaye horta baro waxa ay fanaanada madaxweyne Maxamed Siyaad u sheegtay inaysan doonaynin inay noqoto marwo madaxweyne iyo boqorad toona ayna doorbidaysa wiil Soomaaliyeed oo waxba aan haysan hantida adduun ee Jane Bedel Bukazi uu wado isagoo u hanqaltaagaya meel aanan horseed lahaynin aanan la hubin on horseed looma haadsho way hawiranta qaabeeyay haki caashaqa ayu habaabine halaburkii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamed Cali Kaariye dhakhtarkii jacaylka ayaa riwaayad ka sameeyay qisadaasi jacayl ee Jane Bedel Bukazi u qaaday Khadija Qalanjo riwaayadii caan baxday ee sidaa ma isku qabnaa mise waan qasanaa Jane Bedel Bukazi asagoo ceeb la hagoogan ayuu magaalada Muqdisho isaga huleelay jab iyo ceebna ka raacay Bangi ayuu tagay isagoo qoomamo ka qaaday jacaylkii ay ku diiday gabadhii fanaanada Soomaaliyeed ee qiimaha iyo qaayaha leh ee Khadija Maxamuud Jimcaale Khadija Qalanjo dawladda aynu ku soo gabagabeynayna qiso kale oo tan ka xiiso badan ayaa nagu soo food leh ee moogaanina haki caashaqa ayu habaabine meelo on horseed looma haadsho way hawiranta qaabeeyay haki caashaqa ayu habaabine